munaasabada sanad guurada 23 ee 18 May oo ku beegan markii ay Soomaaliland xornimadeeda kala soo noqotay dalkii la isku oran jiray Soomaaliya ay dadweynaha reer aroornimadii hore ee saaka isugu soo bixeen dabaaldeg ballaaran oo ay ku muujinayaan shucuurtooda iyo dareenkooda wadaniyadeed xaafadaha ay magaaladu ka kooban tahay ay isu soo abaabulay si aan hore loo arag wasaaradaha dhammaanba shaqaalaha dawladda ururada dhalinyarada ururada haweenka xildhibaanada golaha deegaanka iyo dhammaanba shacabweynaha degmada Oodweyne ayaa koox marayay sharciyada waaweyn ee magaalada iyagoo ku labisnaa calanka Soomaaliland isla markaana ku dhawaaqay yeerayo ay ku dalbanayaan in ictiraaf buuxa la siiyo jamhuuriyadda Soomaaliland ee haatan 23 jirsatay ciidamada booliska Bamboyda iyo asluubta ayaa iyaguna halkaasi ku soo bandhigay carbis iyo gaadaka ciyaar ay ugu dabaaldegayaan maalinta qarannimada Soomaaliland ee 18 May waxayna socod dheer kadib halkaasi ciidamadu salaan sharaf ku siiyeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo madaxda gobolka iyo degmada intaasi kadib ayaa madasha ay ka dhacaysay munaasabada 18 May ayay kooxaha anaqaad iyo odhaswa halkaasi ku soo bandhigeen heeso iyo ciyaaro dhaqameedyo ay ku soo dhaweynayaan munaasabada 18 May iyo waliba heeso ay ku amaanayaan gobolka doomiyaha gobolka Daadmareer Jamaal Xuseen Hurre iyo maayirka degmada Oodweyne Cabdixakiin Nuur Muuse ayaa halkaasi kula hadlay dadweynaha iyagoo bulshada ku hambalyeeyay sida wacan ay isugu soo baxeen isla markaana u muujiyeen shucuurtooda munaasabada xuska sanad guurada 23 ee 18 May waxay sidoo kale mas'uuliyiintani hambalyo u direen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo munaasabada 18 awgeed wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga Bashiir Cabdi Xariir ayaa si qoto dheer uga warramay maalinta 18 May iyo qiimaha ay ugu fadhido shacabka reer Soomaaliland isla markaana ay qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland tahay mid muqadas ah isagoo shacabka gobolka Daadmareerna ku amaanay sida taariikhiga ah ay u muujiyeen xuska munaasabada qaaliga ah ee 18 May bahda isboortiga gobolka Daadmareer ayaa iyaguna galabnimadii shalay qabtay ciyaar ay ku soo dhaweynayaan munaasabada 18 May halkaas ay ku wada ciyaarayeen labada kooxood oo kala ciyaaraya gobolka iyo degmada waxaana guushu ku raacday kooxda ku ciyaaraysa gobolka isku soo wada duuba munaasabada 18 May maalinta qarannimada Soomaaliland ayaa dhammaanba wararka naga soo gaadhaya deegaanada Xaaji Saalax Khaatumo iyo Dabagorayaale ay sheegayaan in si weyn looga xusay maalinta qaran ee 18 May Muuse Salebaan Maxamed telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Oodweyne